kumuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma nin Soomaaliyeed oo wadaniya aan aqoon wax qabiil iyo qabyaalad miyuu ahaa mise nin qabiileed balse maanta waxaan aqrin doonaa mar kamida sanadihii uu joogay iyo sida xilalka arrimaha dibadda ay cidiisa ay hayeen waxaan aniga qoray maan waa daraasad mar hore la qoray bal aan isla dhageysano safiirka South Africa Mareexaan safiirka Qatar Mareexaan siyaha safiirka Imaaraadka Mareexaan safiir ku-xigeenka Suudaan Mareexaan safiir ku-xigeenka China Mareexaan 6 safiir ku-xigeenka Malaysia Mareexaan 7 safiir ku-xigeenka Zimbabwe Mareexaan 8 safiir ku-xigeenka Tanzania Mareexaan safaaradda Ethiopia Vice Secretary Mareexaan 10 Addis Ababa Embassy Second Secretary Mareexaan 11 Ethiopia Embassy Commercial Attachment Mareexaan 12 Ethiopia Embassy Cultural Attachment Mareexaan 13 Qunsulka Nairobi Mareexaan 14 Commercial Attachment Pakistan Mareexaan 16 Vice Secretary Germany Mareexaan 17 Vice Secretary Switzerland Mareexaan 18 Vice Secretary India Mareexaan 19 Second Secretary Turkey Mareexaan 20 Second Secretary Oman Mareexaan Farmaajo makumuu ahaa nin qabyaalista oo bal ka dhacday mise wadani Soomaaliyeed jawaabta waa xagaaga